ديمقراطي وكلمة لبا كلمة أف غريغا ككوبان ودي أف عربي لغو معنى لمدة حكم الشعب أف صومالي إنما لا شعبي حكم كبدا سودا إنه استعمال لهم حكم كي شعبك أما حكم كي ددوينه لكن وحي يدهدان بروفيسور مسلم والله يدهدو جعفر إدريس أيا وحي يدهدا وأريق كلية مقع آن حقيقة لهين بو يدهدا يعني ومقع آن حقيقة لهين waayo dunida lama arag buu yidhi meel shacab dhami wax xukumo ma jiro ala kulli xaal waa nidaamkaasi ku salaysan waa nidaam siyaasi ah sidoo hadda u yaalo ee dunidu isaga dhaadhicisay arkaan ay ka tahay in la kala saaro saddexda sultadood ama saddexda maamul ee sultada qadaaga ama judiciary-ga ama qolada maxkamaduhu ay gaar noqdaan sultada tashriica waxa uu yaqaan ama parliamentarian-ku uu gaar noqdo iyo sultada dawladnimo ama xukuumadda wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha iyo waxa la nooc ay gaar noqdaan maanta nidaamka dunidu qaabku u yaalo waxay yiraahdaan dimuqraadiyaddu saddex qaybood baa loo qaybiyaa mid dunida kama jirto oo waa tii erayga dhabta ah uu sheegayay oo aan shacabku xukumo Athens baa ugu dambeysay bay yiraahdaan xataa Athens markay ka jirtay bay yiraahdaan ma ahayn dimuqraadiyad waayo shacabka oo dhan looma wada ogoleen dumarku kuma jirin caruurtu kuma jirin adoomuhu kuma jirin citizenshipka rasmiga qofkaan lahayn kuma jirin waxay ahaayeen koox yar oo kooban oo filosofara iyo in dad oo la socotay ka marka la soo dhaafo labada nooc kale ay leedahay waa nooc la yiraahdo nidaam al-jamciyaat hal dawlo oo qura dunida kaga dhaqanta Switzerland wadanka la yiraahdo weeyaan waa saddexdii sultadood oo koox qura isku wada hayso oo ah baarlamaanka ayaa qadaaduna ka tirsan yihiin madaxweynuhuna ka tirsan yahay wuxuu dhamiba koox qura ku soo ururtaa deetana nidaam al-jamciyaat nidaam la yiraahdo si kala daadaga qaybteeda kale waa qaybtan loo yaqaano parliamentarian-ka oo yana laba qaybood u qaybsanta qayb parliamentarian qayb raasiya ama qaybtan baarlamaan la doorto baarlamaanku ra'iisul wasaaraha doorto iyo qayb madaxweynaha toos loo doorto ta Mareykanka isku soo duuduub waa nidaam ku salaysan midka u fiirso xaq iyo baatil ma yaqaano cod dheeri buu yaqaana wanaag iyo sama ma yaqaano cod dheeri buu yaqaana waa maxay taa macnaheedu wuxuu xataa hadduu xun yahay oo uu cod dheeri haysto waa xalaal hadduu san yahay oo aanu cod dheeri haysanin waa xaraam ariga ma fahmi karaysaa مثلا khamrigu waa maxay cid tidhaahdo wanaagsan ma jiro dunida ku nool maya laakiin cod dheeri buu haystaa inuu xalaal yahay baarlamaanku ma mamnuuci karayo homosexualku miyuu fiican yahay homophilku cid amaan dama jirto laakiin hadduu cod dheeri haysto isagaa soconaya idan markii Yurub diimuhu ay tira bateen ee afkaarta tira badatay ee wax walba tira badatay qaab ay wada noolaadaan waxay u doorbideen inuu noqdo cod dheerida yaale dabeetana cidii 51% heshaan inay meesha maamusho islaamnimadu ka way ka gadisantay islaamnimadu waa waxyu samaa alla soo dajiyay laakiin haddaad si kale u eegto waa doodi karnaa oo iyagu wax dastuur raydhaa 2/3 markii hore ay ku dajiyeen oo aan saqafo laga bixi karin xataa ka hadii la isla dhaafo liberalismka oo aqeeda la rumaysay aan marnaba laga bixi karin say iyagu rumaysayn ayuu hoos yimaada inaguna waxaan leenahay saqaf baynu hoos nimaadnaa kitaab wa sunnah marnaba laga bixi karin wixii ka hooseeya markaa waa la dooran karaa haddii saqafkaasi uu nabad galo idan waa laba nidaam oo meelana isugu iman kara meelana ku kala gadisnaan kara dimuqraadiyaddu qaarna way dhaantaa iyadana islaamka ka fiican wallahu a'lam